inta waxa u dheer dadka kuma jiro maalinta aakhiro ummadda waa ka horeeya waa ka luqun dheer yahay dhirta iyo dhagaxa iyo buuraha iyo ciida iyo guriyaha iyo jinka iyo insiga intuba waxay marxaati uga kacayaan tawxiidka inuu ku dhawaaqi jiray shanta salaado ninba waxay yiraahdeen Soomaalidu waa sheeka badan tahay halka horu safku isku soo kabin jiray war iska caami buu ahaa maalintii dambe uu imaamka ku beegmay imaamkii baa markuu ayaa ilaahay wuxuu leeyahay wala daaq inma ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلهي وعليه سبحانه وتعالى مساجده وحا عمره ضدك تلمامها صوص عضا إسكاله وحرير مسجد oo masaajida camiro aan laga waayin shanta salaadood iyo wixii la halmaalaba dadka tilmaamahan soo socda leh man aamana billah qof ilaahay rumeeyay oo iimaanku ka dhab yahay oo aan wax shaki ah iimaankiisa ka qabin boqolkiiba boqol rabbigii ku kalsoon rasuulkiisa rumeeyay raacay ifka wuxuu u jooga garanaya aakhira waxa kaga horeeyana ku xisaabtamay man aamana billah wal yawmil aakhir maalinka aakhirana rumeeyay wa aqama salata ooga wa aata zakata zakadana bixiya walam yakhsha illa allah allamo ya'idu ka baqanaya aanay jirin fa'asa ulaa'ik waxay mudan yihiin kuwaas oo xaqiiqo yihiin أن يكونوا من المهتدين إني أهادان ونقضان كوا هنونسن وإلهي قلبك هنون أقري علماء تفاصير توحي هذين محال لوجت شيء ذا عمرد مساجدك مرك إلهي وليه مساجد وحى عمر بالليل عمر كوام حي وحي علماء كوروريان سدح قضب أي عمراد مساجدك كوسو أوروريسا سدح قضب ayaa camiraada masaajidku ku soo ururaysa waa midka koowaade at-ta'miru bil ibada in masaajidka cibaado lagu camiro shanta salaadood la yimaado oo dadku soo buuxiyaan in cibaada lagu talagalay faralka lagu tukado jumcaha iyo jamaacada lagu oogo quraanka lagu akhriyo lagu ducaysto lagu wardiyo lagu i'tikaafo waa in cibaado lagu camiraa masaajidku وأن لا أرق مسلمينتي أو هريريه سدجن أما أقل أما مهرضه هي مساجد كيو إسكمران أما محن كورا هذا مرناشان وحبد آمين وين أن لا أرق وين لرت عبادة لو عمره وكو التعمير بالبناء والترميم التعمير بالبناء والترميم إن لو عمره مساجدك للسد هدي ودنسن يهي أما أو جوابيو إن الدنيا وباهيه أما ضيعتر وباهيه أما أو جوجل وباهيه أما اسمه سا أما جوجشي سا أما قلبك بيها سولية دا محن كوير هذا لايرك يا كورنتا ميكروفونك حيابها مساجد كم أرمينين إن لو عمره لسيد هذا تهاي أدي أيته هجاتين جوجل إن اسمها إيه ضيعتيرك إيه ماشي هتبح شبتا إيه ماشي دلعة لا إله إلا مساجدك وأقولي إلهي ومضى مسلم كأهنا وأودحية إمسان شيخنا ما لا سعة تمرت لا سعة 10 كسؤال بدل ما أقول احتري لا سعة قضب كسدحات وحويا التعمير بالعلم إن مساجدك لو عمره علمي أقوم وإن دروس لقى أخريها وإن محاضرات لقى تشيدية وإن كتب كلا دوان لقى أخريها وقاب علمي مسلم كقاط ويان مساجدك وإن علماء فريستا ذاتك الله هذا شاء دروس تو آخرسا سؤالها وقت شوابتا لو قلا بحا وحي وح آخرسانا وح طلبانا علمي فريستان كي دقاها كو قادانا يا كي كتابك كدقيسانا
saddexdaasay ku ururiyaan culimadu tacmiirka masaajidka yaa ku celinaya saddexdaa sheegay hadda haye in lagu camiro cibaado iyo dhismid iyo dayactir iyo cilmi in lagu camiro saddexdaas culimadu ku ururiyeen sida awgeed ilaahay isagaa isu aanayay wa anna almasaajida lillaah masaajida yaa iska leh ilaahay baa le subxaanahu wa tacaala waayahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid darajadiisu xasan tahay anas ibni maalik uu warinayo ayaa wuxuu ka warramayaa muslimiintii dunidan joogtay markay hoydaan oo dabeeto adduunkan la laabo oo ilaahay hortii makhluuqu isu yimaado oo la tuban yahay ayaa ilaahay hadlaya wuxuu odhanayaa ayna jiiraani meeye dadkii aniga jaarka ila ahaa ee aan adduunka dariska ila ahaa meeye dadkaasi malaa'igtaa hadlaysa dadku ma hadli karaan malaa'igtaa jawaabayso waxay odhanayaan rabbana waman yanbagii an yujaawirak ilaahayow waa ayo qofka mudan inuu adiga jaar kula noqdo oo kula darso nasiibkaa qofka iska leh ee aad siisay waa kuma ilaahay baa ka jawaabaya ayna cumaaru lmasaajid meeye dadkii masaajidda camiri jiray markii adduunka la joogay dadkii reer masaajid ahaa shanta salaadood masaajidka ku tukan jiray qur-aanka ku akhrisan jiray waqtigooda aan ku lumin jirin maala yacni masaajidka fadhiisan jiray cilmiga ka raacan jiray reer masjid ahaa dadkaasaan doonayaaba ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala si gaara ilaahay u abaalmarinayaa makhluuqoo daawanaya intiisa kale baa ilaahay sharaf bay agtiisa ka leeyihiin waayo siduu isugu aanayey jaarka dadkii ila ahaa iyo dariska buu nebigu yiri alayhi salaatu wasalaam ilahay muu ka warramay nebigu sal allahu alayh wasalam markuu ka hadlayay adinka iyo aqimka bal intuu nebiga ka sheegay fiiri adinka iyo aqimka keliya qofka adime ee aqima masaajidka bal waxa uu ka helayo bal xisaab baa ka socotay fiiri wuxuu nebigu yiri alayhi salaatu wasalaam man adina 12 سنة وجبت له الجنة قفك أدمة مساجد لبائية 10 سنة قفك كأدمة ومؤدنة جنة واجب تبي النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحكى حديثك وبتأذينه لكل يوم 60 حسنة وبتأذينه لكل يوم 60 حسنة adinkiisa uu adimo maalin kasta salaad kasta oo shanta salaadood kamida uu adimo 60 xasanaad buu leeyahay وبكل إقامة 30 سنة وكتبت له بتأذينه 60 حسنة وحالو قريا adinkiisa hal salaad uu adimo 60 حسنات ولكل إقامة 30 حسنة أقم كستو أقمنا صدًا حسنات باللو قرية عن حساب النهضة موبيل كاغا أبو الله صبح وحسابين النهضة حديث كوحو يري أدين كستو أديمو وإمسة 60 حسنات ويكادي 60 حسنات 60 واحد كله فتاشن اللي هو شن صلاة ضوضي صدح بقول حسنات متى 60 waxaad ku dhufataa 5 salaadood waa 300 xasanaad waxaad hadana isku dhufataa 30ka iqaamada ah aqimka oo 35 ku dhufo 150 isuge 400 iyo konton yawmiyad rasmi iyo goosto qofka muadinka ah 450 xasanaad ayuu cishaha la caraabay 450 waxaad ku dhufataa 30 ku dhufo ila bishii 30 habeen maaha 30 ku dhufaada 13,500 ما هيسا هل بالأه هداد أدينتو 13,500 حسنات بالغو قرية بل كله في اللبية طبعا هدانا سنة كوان تبلوت لبية طبعا كله فاد انت حسوا بحي بقول إيا لحدا إيا اللباكم ويا هالك السنة لبية طبعا كلا كله فادنا إلا اللبية طبعا سنادات قفك أدماء ليدي سوما كله فاد اللبا سناد هل مليون 900
440 kun oo xasanaad weey hal milyan 12 sano ninkii adimo aqima waa hal milyan 940 kun oo xasanaad ayuu qaadanaya arrin sahlan ma aha cibaadada iyo adinka inta waxa u dheer dadka kuma jiro maalinta aakhiro ummadda waa ka horeeya waa ka luqun dheer yahay dhirta iyo dhagaxa iyo buuraha iyo ciida iyo guriyaha iyo jinka iyo insiga intuba waxay marxaati uga kacayaan tawxiidka inuu ku dhawaaqi jiray shanta salaado ashhadu an la ilaha illa allah wali guriyaha arkaysaan oo dhan ba u marxaati furay dhirta ba u marxaati furaysa dhagaxa buuraha dadka jinka kulli marxaati ba aakhira u furay sida awgeed ba waxa khayr ee ku jira laga ma sheekayn karay waxaan warkayga ku ururinaya kaga baxaya salaada marka laga hadlayo masaajidka safkiisa safkan imaamka ku beegan afarta qof ama saddexda qof ee imaamka ku beegan waa inay culimada noqdaan rasuulku wuxuu leeyahay liyaliyanni minkum ulul ahlami wan nuha salaada markaan idin tukinayo waxa aniga igu daba faylayo igu soo xigaya dadka aqliga badan leh oo diinta aqoon u leh oo fahamka culus leh dadkaas soo xigaya dadka culimada aba loo jeeda marka ayaa imaamka dabadiisa iska leh muadinka iyo culimada iska leh waayo imaamku waxba ku iman kara salaada dhexdeeda rak'ad buu ziyaadin kara rak'ad buu dhimi kara sujuud buu ka tagi kara rukuuc buu ka tagi kara qof yaqaan oo saxaala raba isagaaba markuu laba ku tujiyo ama mid wuxuu xusuusan karaa inuu weyse qabin waa bixi kara haye soo dhibaato ma ninba waxay yiraahdeen Soomaalidu waa sheeko badan tahay halka hore safku isku soo kabin jiray war iska caami buu ahaa maalintii dambe uu imaamka ku beegmay imaamkii baa markuu rak'ad tukade tii labaad ku dhex jiro wuxuu xusuustay inuu weyse qabin markaasuu baxay malaha isaguna waa yara mashquulay muadinkii baa ku dhuftay suxulkoo yiri gal xagan muadinkii baa suxulka ku dhuftay markaasuu salaadii xidhay Allahu akbar talo intuu imaamku intee marayay talo ma laga ahay waana mikrofon de wixii wala maqlay codkiisa moogto talo ma laba ku jiray mis saddex war saddexdaba u niyood Allahu akbar saaso kala de lama raba marka waxa la rabaa dadka culimada ah ee fiqhiga garanaya ee diintii garanaya in imaamka ku soo xigaan oo iyagu booska yeeshaan dabigeena Allah dhaafo kii waalidkeena Allah dhaafo dad ahlu masaajida aakhiraya duunba Allah inaga dhigo اللهم صل على محمد channelka warbaahinta nolosha islaamka oo ah TV dacwadeed oo ka shaqeeya arrimaha dacwadda kaas oo aad kala soconayso barta YouTube-ka waxaad ku qortaa warbaahinta nolosha islaamka waxa ku soo baxaya channelka warbaahinta nolosha islaamka ku sii dhufo waxaad sii gashaa qaybta ay ku qoran tahay playlist oo aad ka helayso in ka badan 230 qol oo ay ku kaysan yihiin muxaadaraad iyo barnaamijyo diiniya khayrka ka faa'iideyso sina gaarsi walaalkaaga islaamka balanteena waa warbaahinta nolosha islaamka ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ee cilmiga shariicada islaamka ugu kaalay markaska xifdul qur'aan online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta shariicada islaamka wixii faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda balanteena waa markas xifdul qur'aan online